markab ay la socdaan tiro kor u dhaafaysa ilaa 140 ruux oo qaxooti Soomaali ayaa ka soo shiraacday dekedda magaalada Cadan ee ku taala koonfurta dalka Yemen. Dadkan oo isugu jira dumar, caruur iyo dad waayeel ah ayaa go'aansaday in ay dalkooda hooyo ay ku laabtaan. Safaaradda Soomaaliya, hay-adaha muhaajiriinta ee IOM iyo hay-adda NCRI ayaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyey safarkan, waxaana la filayaa in markabkan saacadaha soo socda uu ku soo xirto dekedda magaalada Berbera. Safarkan lagu soo daadgureynaya qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Yemen ayaa ah wejigii labaad ee laga soo qaado dalka Yemen tiro qaxooti ah. waxaa mar sii horeysay cadeeyay in wejiga labaad uu bilaaban doono. Assalaamu calaykum, waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in rixladii labaad ee UN ka ay maanta baxayso. Tiradoodu dhan tahay 132. Muddo dheerna waan ka soo shaqaynaynay ilaa intii aan magaalada joogay. Alxamdulillah, ilaahay mahadiis weeye. Cid kasta Soomaaliya ah oo rabtay inay baxdaan waxaan ku garab istaagayaa sidii waddankeeda loogu celin lahaa, xuquuqda ay xaq u leedahay inay u heli lahayd ay UN ku leeyihiin amaayo haddii ilaahay marka waxaan idin rajaynayaa khayr dadka safrana ilaahay ha sameeyo. qaxootigan la sheegay in ay si iskood ah u go'aansadeen in laga daadgureeyo dalka Yemen oo ay colaaduhu ragaadiyeen waxay ka mid ahaayeen dadkii Soomaalida ee ku noolaa xeryaha qaxootiga ee Kharaz ee gobolka Laxaj iyo magaalooyin ay ka mid yihiin Sanca, Cadan, Ticiz iyo magaalooyin kale oo ay saameyn weyn ku yeesheen colaadaha. hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa taageeraysa qaxootiga Soomaaliyeed ee iskooda uga soo laabanaya dalka Yemen oo ay ku nool yihiin in ka badan 380,000 oo qaxooti iyo magangelyo doon ah. dhinaca kale, hay-adda UNHCR waxay taageero u fidinaysaa ilaa 10,000 oo qaxooti Soomaali ah kuwaasi oo go'aansaday inay ku laabtaan Soomaaliya. dadkan la soo daadgureynaya ayaa badankood waxa ay ka soo jeedaan koonfurta Soomaaliya, waxaana diyaarad looga soo qaadi doonaa magaalada Berbera iyadoo la gaarsiin doono magaalada Muqdisho. liiraado Ali Abuukar Umar Xirsi 10 sano lix caruuran ku dhalay. wallahi meesha shaqalaan waan xanuunsaday, xaaskiina dad muu joogo, anigana dad ma ii joogo. saas darteeda daruuf darteedan oo noqonaa waayo ilman Soomaali way iga jiraan oo lix ilmiyay waa 13 kaamilkood. Ali Abdi Xasan Maxamed, wallahi dhowr iyo 20 sano 27 sano waxaan leeyahay 7. wallahi yani muddaan joogay oo yani meesha aan ku habaabsanaa oo yani dhinac walba yani alxamdulillah kulleyba hadda waxaan dareemay in xoogaa dawladda ilaahay noo dhaliyay, macnaha dawladdii ay macnaha gacan fiican macnaha iyo warar fiican annaga dhigayna yani ay maqli karaan aan ka maqalnay. alxamdulillah, saas daraaddeed macnaha in annaga waddankii aan u laabano wax alaal wixii oo macnaha horey naga dhumay macnaha in annaga hadda aan soo ceshano iyo wixii gacan aan u geysan karna dawladdeena iyo shacbigeena Soomaaliyeed macnaha haddii ilaahay. Maxamed Cabdullaahi, Royal TV, Yemen.